shirkado kalluumaysi oo laga leeyahay dalka Shiinaha ayaa bishan ka bilaabaya xeebaha Soomaaliya kalluumaysi kadib markii bishii hore dawladda Soomaaliya ay siisay shati. dawladdu waxay ku doodaysaa in shatigani uu hoos u dhigi karo kalluumaysiga sharci darrada ah dhaqaalahana uu xoojin doono. laakiin kalluumaysatada Soomaalida ayaa tani waxa ay sheegeen inay dhaawici doonto ganacsigooda. Maxamed Sheekh Nuur ayaa warbixinta nooga soo diray Muqdisho. waa tan Sahre Ciidla Nuur. Soomaaliya waxay leedahay xeeb dhererkeeda lagu qiyaaso 3,300 oo kiiloomitir waana xeebta ugu dheer Afrika muddo 10 sanadood ah wadankan taagta daran ayaa la daalaadhacay ilaalinta xeebtiisa macdantu ceeggaagto oo ay kalluumaysato shisheeyaha si sharci darro ah farabaas ugu haysay. Soomaaliya waxay horaantii bishan January bilowday inay ruqsado sharci ah siiso 32 doonyood oo Shiinuhu leeyahay. marka maadaama badeena si sharci darro lagu kalluumaysanayay oo maraakiib ajnabi ah oo dawlado badan ay ka kalluumaysanayeen annaga taas ka duuleeno waxaan dhahnay sifo sharci ah dad ku bixisiin waxa laga yaabaa inay yaraato sharci darrada kalluumaysiga. kalluumaysato ajaaniba ayaa badaha Soomaaliya meelo dhaadheer uga soo safri jiray kuwaasi oo badankoodu biyaha Soomaaliya uga kalluumaysan jiray si sharci darro ah amaba haystay ruqsado been abuur oo ay siiyeen mas'uuliyiin musuqmaasuq ku kacaysay. Mudane Abshirow ayaa sheegay in lacagta ay sida rasmiga ah dawladdu uga helayso ruqsadahan ay siisay Shiinuhu ay gaadhayso in ka badan 2 milyan oo dollar sanadkiiba. balse kalluumayste Muuse Macow oo 40 jira ayaa sheegay inay walaac ka qabaan ruqsadda la siiyay kalluumaysatada Shiinuhu in ay suuqa ka xiraan ganacsiga kalluumaysatada wadaniga ah. marka hore waxaa dib ku qabnay maraakiibta shirkadaha shisheeyaha ee ka kalluumaysta si sharci darrada badda xeebaha Soomaaliya. haddana shirkadahan kale oo hadda ma imaadeen aad iyo aad ayaan walaac ugu qabnaa. markuu horeyso weynaga qalab badan yihiin qalabka ay ku gaadayaan qalab aan weligeed aragnimaan. dawladda Soomaaliya ayaa sheegay inay ilaalin doonaan kalluumaysatada yaryar ee wadaniyiinta sida Macow oo kale iyagoo ilaalin doona meelaha ay ka kalluumaysanayaan shirkadaha Shiinuhu iyo inay ku dhawaadaan xeebaha aan loo ogolayn. gudoomiyaha iskaashatada kalluumaysatada Soomaaliya Xasan Rooble ayaa sheegay inaanay rumaysnayn in dawladda Soomaaliya ay awoodo sidii ay u xadidi lahayd kalluumaysatada Shiinaha iyo doonyahooda. nooca loo ogolaaday inuu ka kalluumaysto waxa lagu sheegay toonaha si weyn maxay dad kalluumaystada ay macnaha uga kalluumaystaan. waxaan ka baqaynaa marka meeshaas inay isku dhac u ka yimaado muxuu ahay iyadoo awalba maraakiibtii oo sharci darrada ku kalluumaysanaysa qaabta bilaa ka joognayn. waxaa jiray murano ka taagnaa in kalluumaysatada sharci darrada ah ee 10 sanadood ka hor ka jilaabanayay biyaha Soomaaliya ay keentay in rag Soomaali oo kalluumaysato ahaa ay noqdaan burcadbadeed oo ay afduubtaan maraakiibta soo gala xeebaha Soomaaliya. burcadbadeedii ayaa la aaminsan yahay inay hoos u dhigeen maraakiib ilaalo ah oo gaaf wareega xeebaha si ay ammaanka u sugaan. maraakiibta Shiinaha ee dhawaan ruqsadaha la siiyay ayaa iyagana sidoo kale la filayaa inay hubaysan yihiin.